ma ogtahay shanta dal ee gacanta ku haya lacagta iyo wax soo saarka adduunka sanadkan 2026 kuwaani ma ahan dalal iska qani ah oo kaliya ee waa matoorada dhaqaalaha ee dunida dhaqaajiya aan ku bilowno kaalinta shanaad waxaa fadhida Japan oo leh dhaqaale dhan 4.46 trilyan dollarka Mareykanka. Japan waa dal lagu yaqaano tayada iyo tiknoolajiyada saxda ah waxay dunida u dhoofiyaan baabuurta caanka ah ee Toyota iyo Honda waana hormuudka dunida dhanka robotyada iyo qalabka elektarooniga. haddii aad aragto alaab tayo leh ogow inay Japan ka timid. kaalinta afaraad waxaa ku jira Hindiya oo leh dhaqaale gaaraya 4.51 trilyan dollarka Mareykanka. Hindiya waa dalka ugu koritaanka badan maanta. awoodeeda waxay ku jirtaa adeega IT-ga iyo software-yada. sidoo kale Hindiya waxaa lagu yeeraa farmashiyaha adduunka sababtoo ah waa dalka ugu weyn ee soo saara daawooyinka caalamka loo dhoofiyo. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Jarmalka. kaalinta saddexaad waxaa adkaystay Jarmalka oo leh dhaqaale dhan 5.33 trilyan dollarka Mareykanka. Jarmalka waa mishiinka Yurub waxay caan ku yihiin injineernimada ugu horeysa adduunka. sidoo kale baabuurta raaxada ee Mercedes iyo BMW. sidoo kale waxa uu Jarmalka ugu dhoofiyaa dunida mashiinada waaweyn ee warshadaha loogu shaqeeyo. haddii aad aragto alaab ay ku qoran tahay made in Germany qiro inay tahay sumad tayo leh. wadanka kaalinta labaad ugu jira kala sarreynta dhaqaalaha adduunka waa China. kaalinta labaad waxaa si weyn oo adag waliba u adkaystay China oo leh dhaqaale gaaraya 20.65 trilyan in ka badan 15 trilyan. wadanka kaalinta saddexaad fadhiya ee Jarmalka. Shiinuhu waa warshada adduunka laga soo bilaabo taleefanka gacanta aad ku heshitid ilaa miraayadaha cadceeda. Shiinuhu ayaa soo saara ku dhawaad wax kaste. waa quwad aan la tartami karin dhanka wax soo saarka baaxadda leh. kaalinta koowaad ee kala sarreynta dhaqaalaha adduunka waxaa haysta wadanka Mareykanka. ugu dambeyn kaalinta koowaad waxaa weli ku raagay Mareykanka oo leh dhaqaale gaaraya 31.82 trilyan. Mareykanku wuxuu hogaamiyaa hal abuurka iyo maaliyadda. waa hoyga shirkadaha dunida xukuma sida Apple, Google iyo Microsoft. sidoo kale waxay hormuud u yihiin farsamada hawada sare iyo nidaamka lacagta adduunka ee dollarka. kuwani waa shanta dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. midkii ayaad filaysay inuu kaalinta koowaad galo? ma u malaynaysaa in Shiinuhu oo Mareykanka dhaafi doono mustaqbalka? noogu reeb fikirkaada qaybta faallada. fiidiyowgana sii shargalay. mahadsanid.